السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي دمانتنا ميل والبا دنيدا كجوجتان kusoo dhawaada muuqaal cusub barootinkii timaha qaybtiisii 12aad maanta waxaan kula sheer gareyn doonaa insha Allah keratin cajiib ah oo timaha kaaga dhigayo kuwa madow badan sidoo kale bidaarta hadii aad ka cabanayso ama tintaada gadaal ee u sikatay wuu buuxinayaa timahaagan wuxuu kaaga dhigayaa mid xabad weyn oo qurux badan insha Allah halkan waxaa kusoo diyaarsaday bariis cad shiidan oo border ah sidoo kale 9 xabo oo toon ah toonta waxay ka caawinaysaa tintaada meelaha banbanaan inay buuxiso sidoo kale salka hoose ay ku nadiifiso caafimaad qabkoodana sare ay u qaado dulduleelka xirmo way furaysaa bariiska wuxuu qayb qaadanayaa timaha inuu degdeg u soo bixiyo maasha Allah tintaada gadaal hadii u sikatay afka hore dadka ka sikatay hadii aad tahay way ku soo bixinaysaa sidoo kale rag hadii aad tahay bidaar aad ka caawinaysid sidoo kale hadana digsiga soo qaatay waxa ku shuba toonta iyo bariiskana laba qaando oo border ah hadana waxa ku darsanayaa 2 koob oo biyo ah biyo caadi ah isticmaalaya dana isku soo karinaya maasha Allah marka isku soo shiidid meesha waxa kaaga soo baxay keratin cajiib ah sidoo kale tinta dhan kaaga dhigayo mid qurux badan salka hoose tinta ka xoojinaya kaaga dhigayo mid xabad weyn ah maasha Allah hadii aad bidaar ka cabanaysan alaabtan isticmaal oo tijaabi insha Allah wax badan aad ku faa'iidi doontaa had dabka soo saartay sida soo karsamaya quruxda badan toonta hadii ay bislaatan dhaqsi ay shiidmaysaa marka insha Allah waqti badan kaama qaadanayo keratinkan waa keratin aad cajiib u ah hadana waa soo shiitay maasha Allah sidaas quruxda badan oo igu soo baxay alaabtii cajiibka ah hadii aad naga daawanayso Facebook page ama TikTok fadlan follow garee muuqaalkan like noo saar siin share garee oo la wadaag walaalaha kale hadii aad naga daawanayso YouTube channel-keena fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koowaad waa ku maasantahay daawashada quruxda badan alaabtan keratin sida marka u sameystay timahaaga marinaysa waxa ku joogaysa 1 saacadood kadibna waxa iskaga dhaqaysaa shampoo ama condition sidoo kale baca ku xiraysa markii aad marstid insha Allah timahaaga isbedel weyn ka arki doontaa caafimaad qabkana sare ayuu qaadi doonaa muuqaalkan hadii aad ka heshay fadlan like noo saar siin share garee oo la wadaag walaalaha kale waa ku maasantahay daawashada quruxda badan sidaas nabadgeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.